dagaalada beeleedyadan dhexmaray labada maleeshiyada ee maamulkaasi oo dhawaan ka socda duleedka magaaladaasi Kismaayo ayaa lagu soo waramayaa inuu si xoogaysanayo isla markaasina ay dad badan ku dhinteen isaakana uu halkaasi ka socdo sida ay sheegeen dadka deegaankaasi dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlayaa gobolkaasi waxaana la isku adeegsanayaa hubka fudud iyo ka culus in ka badan 50 qof ayaa lagu waramayaa inuu ku geeriyooday colaadda muddada isbuuca ka go'need duleedka gobolkaasi ee caasimada ku meel gaarka maamulkaasi Jubbaland ee Kismaayo dadka dhintay ayaa waxa lagu soo sheegay inay isugu jiraan dad shacab ah iyo dhinacyada dagaalamayaasha wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in colaadda wali taagan ay salka ku hayso dul daaqsimeed iyo aanooyin la xiriira qabiil toban kale oo dhaawac ah ayaa la geeyay isbitaalka guud ee Kismaayo colaadan ayaa waxa lagu soo waramayaa inay saaka mar kale ka qaraxday isla markaana dhacday in ay wadaan hubab urursi xoogan maamulkaasi Jubbaland ayaa la sheegayaa inay dhawaan ciidamo u direen deegaankaas dagaalku ka socdo balse wali kuma aysan guuleysan inay joojiyaan dagaalkaasi Xamse Dabaare Star TV